بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan ba allaha awoodda la dhammaanteen waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo cudurka safareenka ee coronaviruska iyo cudurro kaleba waa maalinimo jimco ah bisha Diseembar waa 2020 cudurka coronavirusku waa uu jiraa meelo badan oo adduunyada ka mid ah iyadoo dhinaca kalena digniino xoog leh la soo saarayo iyo weliba baadigoob loogu jiro qaabkii iyo sidii loo ogolaan lahaa guud ahaanba marka la fiiriyo tallaalada kala duwan ee adduunyada laga ballan qaaday waddanka Mareykanka markaynu fiirino bishii November ee la soo dhaafay ilaa iminka xaaladiisu ma wanaagsana marka la eego maalin walba tirooyinka la arkayo dadka cudurku uu ku dhacayo iyo tirada faraha badan ee dhimanaysa taasoo abid ahayd intii sanadka ayada cudurka coronavirus guud uu jiray markii ugu baanayd waddanka Mareykanka xagga tirooyinka dadka uu ku dhacayo laga arkayo iyo dadka uu dhimanaya intaba wararkii ugu dambeeyay Mareykanku waxa ay sheegayaan in maalintii Arbacadii la arkay 190 iyo weliba 5695 ruux oo cudurka laga arkay iyo tiro gaaraysa 2733 oo ah tiro aad u fara badan oo markaasi dadkii cudurka uga dhintay isla maalinkaasi gobollada Mareykanka ayaa aad u liita marka la fiiriyo weliba gobollada ugu dadka badan waxaa tusaale loo soo qaatay gobolka California gobolka Texas iyo gobolka Florida oo ah saddex gobol oo tirooyinka dadka degani ay yihiin kuwa ugu badan waddanka Mareykanka oo haddaba gobol walba 1 milyan dadka cudurka uu ku dhacay ay kor u dhaafeen iyadoo maalin walbana ay siyaadayaan maamulayaasha saddexda gobolna ay soo saarayaan awaamiir cusub oo ah in dadku weliba guryaha ay joogaan taas oo loola jeedo inaanu xaalku wanaagsaneyn tan iyo inta laga helayo daawada amaba waxa loo yaqaan talaalka oo ah mid barnaamijkiisa iminka lagu daba joogo waddanka Mareykanka ayaa isbitaalada waxa u jiifa cudurka coronaviruska dad la sheegay inay ka badan yihiin 100,000 oo ruux taasoo siyaadaysay maalinta ka dambaysa bishii November ee la soo dhaafay waxay ahayd bishii ugu baanayd marka la fiiriyo dalka Mareykanka iyadoo la arkayay toddobaad walba 1 milyan dadka badan in cudurku uu ku dhacay waa bisha November oo kaliya taasoo keentay in la arkayaba iminka maalintiiba ilaa 200 oo kun ku dhawaad dad cudurka in laga arkayo guud ahaan dalka Mareykanka xanibaado kala duwan ayaa la soo rogay iyadoo isla markaasina digniino ay jiraan ragga saynisyahanada iyo dhaqaatiirtu waxay sheegeen inay eeda dusha uga tuurayaan dadkii malaayiinta ee iyagu dhoofayay marka la fiiriyo ciidii la soo dhaafay ee 26 November ee ahayd Thanksgiving waxa loo yaqaano taasoo dadku ay dhagaha ka furaysteen awaamiirtii iyo talooyinkii maamulayaasha caafimaadka iyo saynisyahanada oo ahayd in guryaha lagu xasilo oo aagaga la jooga markaasi lagu ciido laakiin taasi aanay dhicin oo dad badan oo malaayiin ah garoomada dayuuradaha ay tageen qaarna ay haywiyada kala duwan ay mareen si ay markaasi dadkoodii isu arkaan waxaa loo tirinayaa dadkan faraha badan ee la arkaya maalmihii ugu dambeeyay inay tahay dad is soo arkay oo qaarkoodna ay fiicnaayeen qaarkoodna cudurka qabeen kadibna isku naafsaday kadibna isqabadsiiyay kadibna soo gudalaabtay kadibna la arkay tiradu inay si aad iyo aad u badatay dhakhtarka ugu weyn marka la fiiriyo dhaqaatiirta arrimaha caafimaadka ee waddankaasi kana tirsan guddiga xaaladda cudurkan isaga ee coronaviruska ee Mareykanka Dr. Anthony Fauci ayaa ka mid ah dhaqaatiirta digniinta xoog leh waqtiyo badan soo saaray oo weliba sheegayay waddanka Mareykanku jiha qaldan inuu ku socdo marka la fiiriyo xagga cudurkan iyo la tacaaladiisa haddaba marka la fiiriyo guud ahaanba Mareykanku waxa uu ahaa mid aad iyo aad u liitay walow la rajaynayo bishan 10keeda in ay yimaadaan amaba ay isu yimaadaan qoliyaha iyagu qaabilsan xagga la socodka cunooyinka iyo weliba dawooyinka oo ay ka kulmaan codsiga uga yimid shirkadda dhinaca talaalka ee lagu magacaabo Moderna oo haddii taa marka la ogolaado ay dhici karto talaal badan oo degdeg ah in la soo saaro waxa kale oo 17 bishan fadhiisanaya isla guddigaasi oo eegayo codsiga ay soo gudbisteen shirkadaha iyagu isla socda ee kala Pfizer iyo weliba BioNTech oo iyaguna sheegay talaalkooduna waxtar leeyahay kaasoo weliba Arbacadii UK ay hore ugu ogolaatay labadaasi marka haddaba la fiiriyo guud ahaan dalka Mareykanka arrimuhu ma qumana laakiin waxa ay rajeynayaan bal haddii talaal la bilaabo inay dhici karto arrimuhu inay xasilaan saadaal ayay sameynayaan tiradan iminka 14 milyan dadka kor u dhaafay cudurka coronavirus uu ku dhacay dalka Mareykanku haddaan xaalku sidan iska bedelin bisha Maarch 2021 dadka cudurka coronavirus Mareykanku ku dhacay inay kor u dhaafi karayaan ilaa iyo 100 milyan oo ruux marka la fiiriyo haddaba UK waxa ay ka mid tahay wadamada iyagu ku yaala qaaradda Yurub oo cudurku saameynta xoog leh ku yeeshay qaybihii hore iminkana mowjadiisa labaad ay ahayd mid carcarsan oo culaysyo badan la timid wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in tirada dadka UK cudurka uga dhintay ay kor u dhaafeen ilaa iyo 60,000 oo ruux taasoo markaa noqonaysa tirada dalka shanaad ee adduunka ugu badsaday iyo weliba qaaradda Yurub waddanka koowaad ugu dhimasho badan
waxaa la arkaya 24 saac la soo dhaafay tiro aan ka yarayn 14,879 ruux oo cudurka laga arkay iyo 24 saac la soo dhaafay UK cudurka inay u dhinteen dad gaaraya 404 iyo weliba 10 ruux guud ahaan UK cudurku maalinkuu bilowday ilaa maalinka maanta dadka uga dhintay waxaa lagu sheegay 60,113 marka haddaba la fiiriyo guud ahaanba adduunyada waa dalka shanaad Maraykanka ayaa koow ah labana waxa ah dalka Brazil saddexna Hindiya afarna dhimashada waxa Mexico wadanka UK-na waa wadanka shanaad ee xagga dhimashada dunida laakiin marka la fiiriyo qiyaas ahaan adduunyadu waxay fiirisaa ama ay eegtaa boqolkii kun ee ruuxba dal kasta in mise ayaa cudurka qabta saas haddii loo fiiriyo UK shantan wadan ee ka horeeya iminka ay shanta ku tahay afarta ka horeysa waa ay ka dhimasho badan tahay maxaa yeele waxaa la eegayaa maaha tirada dadka dalka degan ee waxaa la eegayaa boqolkii kun oo ruuxba in mise ayaa cudurka qabta UK markaas afartan wadan waa ka dhimasho badan yihiin dadkeedu UK adduunyada marka la fiiriyo waa dalka toddobaad xagga dhimashada ugu badan 6 kaliya ayaa ka horeeya marka la fiiriyo qiyaastan ah boqolkii kun ee ruuxba in mise ayaa qabta waxaa ka horeeya Spain oo iyadu ka tirsan qaaradda Yurub cudurkana saameyn xoog leh uu ku yeeshay Talyaaniga oo isaguna cudurku saameyn xoog leh uu ku yeeshay wadanka lagu magacaabo Belgium oo isagana mawjadiisa labaad aad ay u carcarsan tahay wadanka la yiraahdo Peru oo ku yaala isaguna Latin America iyo labada qaybood oo kala ah San Marino iyo weliba Andorra markii lixdaas laga yimaado dalka toddobaad ee UK lagu magacaaba waa dalka ugu dhimasho badan adduunyada dadka dhimanaya cudurkan coronavirus-ka marka daba la fiiriyo adduunka oo dhan 12 wadan dadka badan ayaa iyaga laftooda cudurku uu dhaafay ilaa iyo 1 milyan dadka cudurku uga dhacay walow haddana ay aad u kala badan yihiin ama ay kala badsadaan UK haddaba arbacadii ayaa waxa ay sheegtay in ay eegeen ay ka baaraandegeen ay fiiriyeen ayagoo feejigan kadibna ay ogaadeen in Pfizer iyo BioNTech markaas talaalkoodu uu yahay mid waxtar leh oo markaas ammaana ama wanaagsan arrintaas iyada waxaa ka hadlay maalinimadii shalay dhakhtarka lagu magacaabo Anthony Fauci oo isagu waraysi siiyay ee janal kamida janalada wadanka Mareykanka wuxuu sheegay UK inay u muuqato si taxadar leh inaanay uga fiirsan go'aanka ay ku ogolaatay Pfizer iyo BioNTech talaalkeeda waxa uu ku tilmaamay arrintaasi inay keeni karto dhibaato ah dadku inaanay aaminin oo dadka UK degani markaas ay diidaan in la talaalo waa sidoo hadalka u dhigayo Anthony Fauci laakiin dawladda UK arrinkaas iyo dhakhtarka hadalkiisa waa ay difaacday oo waxa ay sheegeen si fiican oo ka fiirsi leh inay uga fiirsadeen BioNTech iyo weliba Pfizer talaalkooda inta aanay ogolaan arbacadii haweeney dhakhtarada ayaa waxa ay sheegtay in ilaa iyo bishii June ay la socdeen dhaqdhaqaaqa iyo diyaarinta talaalka Pfizer iyo BioNTech haddii ay yihiin UK taasina ay keentay qolyahooda ugu qaabilsan xagga la socodka caafimaadka iyo daawada inay markaas aqritaanka ay ogolaadeen arbacadii laakiin Anthony Fauci waxa uu leeyahay waxay u muuqataa waqtiga in la dardaray oo la dedejiyay oo markaas UK aanay si buuxda uga fiirsan laakiin dhinaca kale fikir ka duwan waxa qaba nin isagu ku xigeen u ah xagga caafimaadka ee wadankan oo lagu magacaabo Professor Jonathan Van Tam waxa uu yiri waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyo arrinka ku saabsan ogolaanshaha talaalkan Pfizer iyo weliba BioNTech ee UK ay markaas soo dhaweysay anoo kalsooni buuxda ku qaba uu yahay mid wax tari doona marka la fiiriyo ka hortagga cudurkan coronavirus-ka ee saameynta ku yeeshay guud ahaan dunida UK-na ay ka mid tahay haddaba qolyaha saynisyahanada iyo dhaqaatiirta kala duwan ee UK iyagu waxa ay leeyihiin waa laga fiirsaday oo waa la eegay si taxadar leh kadibna arrintan waanu ku dhaqaaqnay anagoo og laakiin dhakhtarkaasi waxa uu leeyahay arrintaasi waxay ahayd arrin lagu degdegay marka Anthony Fauci oo sidaa leeyahay isagoo jooga Mareykan talaalka UK ee ogolaatana uu ka faaloonayo ayaa dhinaciisa Mareykanka xaaladdu aanay qumanayn oo la arkaya 14 milyan dad ka badan oo cudurku uu soo ritay iyo 275,000 oo ruux Amerikaana dadka badan in cudurku uu dilay waa coronavirus-ka waxa uu digniin siinayaa guud ahaanba reer Mareykan oo uu leeyahay xaalkani ma wanaagsana isagoo weliba madaxweynaha la doortay Joe Biden arrintaasi ay ka wada hadlayeen oo ah qaabka iyo sida loo wajihi karo talaalada loo dedejin karo dadka Mareykankana loo gaarsiin karo maxaa yeelay bishii November la soo dhaafay oo kaliya aad iyo aad ayay dad badan cudurkani ugu dhacay dad badan ay ugu dhinteen wadanka Mareykanka marka la fiiriyo haddaba guud ahaanba qayladaan xoog leh
ayaa jirta iyadoo weliba la arkayo wadamada xilliga qaboobuhu uu u bilowday inay bilo la yaab leh ay ku soo socdaan marka la fiiriyo sida cudurku u faafayo iyo weliba xilliga qaboobaha oo ay dhacday in aad iyo aad cudurku u faafo dhinaca kale qolyahan dhinaca talaalka Moderna hadday tahay Pfizer iyo BioNTech iyo weliba Oxford iyo AstraZeneca wada socda iyo Sputnik oo ah sharikad Ruushka intuba waxay leeyihiin talaaladeenna waa kuwa waxtar leh waa la hubiyay waa la eegay dad ayaa lagu eegay mutadawiciina kadibna waxaan ogaanay in talaalka ugu liitay 92% uu yahay mid waxtar leh kuwa kalena ay yihiin ilaa 94% 95% inay yihiin kuwa ayagu waxtar leh waxa daba la eegaya guud ahaanba arrimahaas sida ay noqdaan dhinaca Mareykankana wararkii ugu dambeeyay waxay sheegeen madaxweynayaashii hore ee dalka Mareykanka qaarkood inay dhiiri gelinayaan talaalka oo ayagu isku talaali doonaan waxa kamid ah madaxweynihii 8 sano xukunka hayay ee Bill Clinton xagga dimuqraadiga iyo madaxweyne George W Bush Jr oo isaguna 8 sano hayay iyo weliba madaxweyne Barack Obama oo isagana la wareystay oo uu yiri hadii Dr. Anthony Fauci uu sheegay talaalku inuu yahay mid fiican oo waxtar leh aniguna waa istalaalaya saddexdaas madaxweyne waxay muujinayaan dadkooda Mareykanka inay ku dhiiri geliyaan talaalka inaanay ka maagin oo aanay ka baaqsanin oo ay noqdaan kuwa iyagu istalaala gabar ayaa jirta iyadoo wax qorta oo ka tirsan wadanka Poland waxay tiri marka hore talaalka ha qaataan guud ahaanba siyaasiyiinta adduunka waanu ka warsoogeynaa bay tiri hadday noolaadaan annagana waa qaadanaynaa waa noolaanaynaa hadday siyaasiyiintu talaalka ku wada dhintaanna annaga waa noolaanaynaa haddaba guud ahaanba waxaa la eegi doonaa arrimahaas sida ay noqdaan talaalada soo baxa iyo xaalka adduunka iyo murugada ka jirta cudurka coronavirusku sida ay noqoto marka haddaba aynu fiirino fariintan iyada ee maalinlaha ah ee cudurka coronaviruska waxaa fududeeya sharikadda dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliyana guud ahaanba la geynayo lagana keenayo waa sharikadda lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leyton halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmar Barqadle iyo weliba iyadoo halkaas laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan la isaga daabulo alaabooyinka hadda diraysidii hadii lagu keenayo intaba ganacsade Axmed Barqadle waxa kale oo bulshada u haya guud ahaanba telefoonada noocyada kala duwan ee kuwa ugu dambeeyay iyo cunooyinka kala duwan waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949528777 dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba dhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhawaan yaana kuu soo dhawaan yaana isu soo dhawaan aan kala fogaano baryada eebba aan badina nadaafadana aan ku dadaalno maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga Universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronaviruska oo idin leh annagoo kariimkeena kaashanayna kaalinteena aan ka qaadano ka hortagga coronavirus ma sha Allah